xalqada koowaad ee filimkeena waxay ku bilaabanaysaa Scotland 9 Oktoobar 1944 markii dagaalkii koowaad uu dhamaaday waxaana waqti xadirkaasi socday dagaal qabow kaas oo u dhaxeeya Jarmalka iyo UN-ka hogaamiyihii Jarmalka Hitler wax uu doonayay inuu ku guuleysto qaramada midoobay si kasta wax ku qaadatay waxaa kaloo jiray nin lagu magacaabo Garagory waxa uu ahaaneen Hitler garab ku siinay inuu dunida qabsado waxaana Garagory lahaa laba saaxiibo kuwaas oo kala ahaaneen iyo naag Garagory waxa uu rabay inuu sameeyo qalab lagu maamuli karo adduunkan oo dhan dhab ahaantii ugu dambeyntii wuxuu Garagory ku guuleystay inuu dhiso qalab isagoo qalabkaasi dhisay 5 sano waxaana sidoo kale qalabkan lagu furi karaa marka adduunka taas u sahli doonta in dagaalka guuleystaan ujeedadooda ayaa ahayd in Hitler ka caawiyo inuu ku guuleysto dagaalka waxaana bilaabeen hawshooda si ay ugu guulgooraan waxaana fureen markii adduunka laakiin waxaas lama filaan halkaas u soo weeraray ciidamada qaramada midoobay dagaal weyn ayaana dhaxmaray labadii ciidan waxaana furnaa mareenka adduunka mid ka mid ah ciidamadii ayaa bam ku soo tuuray qalabkii waxaana midaasi sababtay inuu bamkii qarxo waxaana qalabkii dhaxgalay ninkii Garagory ahaa labadiisii saaxiibna waa ay kala carareen kadib ciidamadii waxaan shaqar ka maqleen dhabarkooda markii ay soo aadeen halkii ay shaqarta ka maqleen waxay halkaas ka heleen cunug yar oo gaduudan kaasoo aan la garanaynin meesha uu ka yimid cunugan yar gacantiisa midig waa ay weyneed professor ka mid ah ciidamadii qaramada midoobay ayaa cunugii shuklaat u taagay isagoo sidaas ku soo qabtay cunugii yara dhabaantii cunugana waxa uu hajin ka yimid duni kale waxa uu halkaan yimid markii la furay marinka adduunka kadib waxay cunugii u bixiyeen magaca Hellboy dhamaan professorkii ciidamada iyo cunugiiba waxay wada galeen sawir waxaan hadda ka soo wareegatay 60 sano nin ayaa la soo qabtay isagoo la keenay meel qudus ah waxaana lagu dilay halkaas ninkii dhiiggiisa ayaa hal meel isugu imaaday waxaana isku soo ururiyay dhiiggii ninkii waxayna ogaadeen in ninkii Garagory ahaa uu tilaabsaday adduun kale waxaana halkaas ka soo baxay ninkii Garagory ahaa kadibna waxaan aragnaa professorkii isagoo noqday nin daaweyn waqti xadirkaasna waa xanuunsanaa professorkan waxaana professorkii loo sheegay in 2 maalin kadib uu dhiman doono dhabaantii dhaqaatiirtii waxay rabeen inay professorkan ku siiyaan isbitaalka si naftiisu badbaadiyaan laakiin professorka ayaa ku yiri dhaqaatiirtii waxaan rabaa inaan gurigayga joogo sababtoo ah wiilkayga wuu ii baahan yahay kadib professorkii waa uu soo baxay isagoo ku noqday xarunta cilmi baarista ee paranormal aan ku xasuusiyo daawade noo socodsiyo muuqaalka oo noo garay muhiim ay noo tahay haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir waxaana halkaas jooga wiilkiisa wax uu wiilkiisa ku wareejiyay xarunta cilmi baarista professorkii waxa uu tusiyaa wiilkiisa wax ugu muhiimsan oo ay shaybaarkan ku sameeyeen waxaana ka mid ah makhluuqyadan waxaana professorkii bilaabay in buugga saadaalinta uu akhriyo wiilkiisa waxaana u sheegay wiilkiisa inay makhluuqyadan si taxaddar leh u baareen markii ay abuurayeen waxaana professorkan karti u lahaa inuu akhriyo 4 buug waliba si degdeg ah wayna soo baxeen professorkii wiilkii waxaana professorkii wiilkii ku yiri waa inaad hawshaada halkaan ka sii wadaa waxaan halkaan ugu yimaadeen wakiilka halkaan waardiyaha ka ahaa waxayna soo galeen qol laakiin waxa qolkaas ku aalmeeteynay Hellboy ka soo weynaaday laakiin wali waxa uu la midabkiisa xitaa haddii 60 sano ka soo wareegatay wiilkii professorka waa uu naxay markii Hellboy uu arkay Hellboy ayaa markaas weydiiyay wakiilkii waa kuma ninkan wakiilka ayaa markaas u sheegay in wiilkan saaxiibkood uu yahay balse Hellboy ayaa yiri aniga uma baahan wax garab istaaga oo aniga ayaa isku filan kadib wiilkii professorka ayaa markaas shukulaato soo taagaya waxaana markaas weydiinaya Hellboy wiilkan muu xalay professorkii wakiilka ayaa markaas ugu jawaabay waxa dhalay professorkii intaas kadib waxay maqleen qeyladaan waa ayna soo baxeen waxayna yimaadeen meeshii waxaas oo dhan ka dhacayeen meeshaasna waxay ahayd meel madxaf ah halkaasna waxaa ku jiray makhluuqyo aad u fara badan iyagoo dad badan ku laayay waxayna soo galeen gudihii madxafka laakiin mid ka mid ah makhluuqyadii uu sameeyay professorka ayaa markaas kula talinay Hellboy waa inuu naftiisa ka taxadaraa waxaana markaas siinayaa baaruudo si uu markaas naftiisa u difaaco waxaana qaadanaya biskooladiisa Hellboy isagoo markaas gudaha soo galaya waxaana markaan gadaal ugu imaanaya makhluuqii isla markiiba makhluuq ayaa ku soo boodaya waxaana la tuuraya biskooladii uu haystay isagoo halkaas ku dilaya laakiin ninka makhluuq professor ka mid ah ayaa markaas sheegaya in Hellboy makhluuqan uu dilo oo san mid sahal ku dhimanaya maxaa yeelay waa makhluuq awood u leh inuu markaas si kastaba ku sii noolaado markii uu madaasan maqlin Hellboy aad buu u yaabaya waxaana isla markii ku soo boodaya makhluuqii waxayna bilaabeen inay dagaalamaan laakiin Hellboy ayaa markaas laqsiinay biskooladiisa waxaana markaas ka tuuriya darbiga kadib professorkii asxaabtiisa waxay markaana ogaadeen in makhluuqyadan ay yihiin ninkii Garagory oo markaas tagay adduun kale waxaana markaas ku bedelay ninkii Garagory makhluuq halis ah waxaana soo watay makhluuqii isagoo markaas doonay inuu adduunka hore baabi'iyo Garagory waxa uu isku soo hormariyay xayawaanadan isagoo markaas u diray ninkii Hellboy ahaa laakiin professorka aad buu xanuunsanaa waxa uu naaday isbitaalka ninkii Hellboy waxa markaas la kulmay gabar lagu magacaabo Liza labaantii gabadhan Liza waxay xubin ka ahaan jirtay kooxdooda waxayna gabadhan leedahay awood aan caadi ahayn laakiin waqti xadirkan ma aysan ka mid ahayn kooxdooda maxaa yeelay hore ayaa looga saaray markii kooxdooda laga saaray waxa laga dhigay dhakhtarada daryasha isbitaalka dhibirka ninkii Hellboy ayaa markaas ku yiri waa inaad noo soo laabataa laakiin Liza ayaa markaas ku tiri ma jeclina halkaan sii joogo laakiin waxa laga yaabaa inaad gadaasheeda horumar fiican sameysaan haddana wax shil ma aysan dhicin waxa laga yaabaa inaad si dabjoog u guuleysano kadib asxaabtii Hellboy ayaa halkaas ugu yimid waxayna markaas soo wadeen ninkii Hellboy ahaa
waxaana asxaabtii arkeen ninkii Hellboy oo nabar soo gaaray markuu dagaalka ku jiray iyagoo markaas ogaaday in makhluuqii oo markaana ku reebay ukumo waxaana markaas ninkii Hellboy jirkiisa ka soo saareen ukumihii laakiin makhluuqaas ninkii uu qaniin oo muddo qaadan karo ukumahaani waxaana midaas sababaysaa inuu qofkaasi adduunka si degdeg ah ugu tago waxaana markaas sheegeen inay muhiim tahay in ukumahan ay ku abuuraan makhluuqyada iyaga abuureen maalintii xigta waa ay soo baxeen iyagoo markaas yimid goobtii ay markaas ku abuuriyeen makhluuqyada markaa halkaasi soo gaareen waxay bilaabeen inay dhammaan soo qaadeen ukumihii waxaana markaan aragnaa makhluuq ka mid ah makhluuqyadii kaasi ku dhex jiro biyaha laakiin si degdeg ah waxaa markaas kusoo weeraray makhluuq isagoo markaasi bilaabay inuu dhammaan soo weeraro asxaabtii Hellboy laakiin makhluuqan waxa uu la awood aan caadi ahayn kaasoo ku baabi'in karo dhammaan dadka halkaan ku sugan waxaana makhluuqii halkaas ku diriyaa wakiilkii waxaana markaan halkaas imaanay ninkii Hellboy ahaa waxaana ugu dambeyntii Hellboy ku guuleysanayaa inuu ugu dambeyntii halkaas ku diro makhluuqii waxaana ogaanaya ninkii Hellboy inuu markaas saaxiibkiisa wakiilka halkaas ku dhintay waxaana markaan cad in laba makhluuq ay soo bixi doonto kadib markii ay direen mid ka mid ah dhanka kale professorka ayaa waxa uu keenaya Lisa meesha uu deganaa waxaana halkaas imaanay ninkii Hellboy isagoo markaas arkay in Lisa halkaan la keenay arrintaasna aad buu ugu farxayaa sababtoo isagoo waxa uu jeclaa gabadhan Lisa laakiin weli ma uusan u muujinin dareenkiisa taa beddelkeeda professorkii waxa uu baariyaa meydkii saaxiibkii Kagora laakiin meydkii saaxiibkii Kagora waxa uu ekaa sida inuu dhintay professorkii waxa uu fiirinayaa in saaxiibkii Kagora aysan ku jirin wax dhiig ah waxaana markaas ka jiikimiyaa dhiiggiisa kadib professorkii waxa uu soo baxay barnaanka isagoo markaas bilaabay inuu la hadlo asxaabtiisii intuu markaas asxaabtiisii la hadlayay waxaa soo kacaya saaxiibkii Kagora waxaana bilaabay inuu dharkiisa soo gashto isagoo markaas soo aadayay banaanka laakiin professorkii wuxuu arkayay ninkii saaxiibkii Kagora oo markaas soo degaya waxaana markaas la yaaban yahay sababta saaxiibkii Kagora oo markaas uu soo degayo si tartiib ah kadibna waxaa la arkay ninkii Kagora oo halkaas fadhiya waxaana markaas Kagora ku leeyahay waxaa laga yaabay lahayd inaan aniga kulmin haddii aad dili lahayd 60 sano ka hor cunugii yara wuxuuna ku yiri waxaan ku tusiyay aragtida mustaqbalka waxaana taabtay wajigii professorka professorkii wuxuu arkayaa in ninkii Hellboy ay labadiisa geesood aad u koreen adduunkii oo dhan waa u baabay waxaana ka jiray dab aad u fara badan saaxiibkii Kagora ayaa markaas diray professorkii Hellboy ayaa markaa arrintaas ogaaday isagoo markaas u yimid professorkii oo beeda aad buu u niyad jabay markuu arkay in aabiis isaga soo koriyo oo halkaan ku dhintay sababtoo Hellboy isaga adduunkan cidna ma uusan ku lahayn waxaa soo koriyay ninkaan oo kaliya isagoo aabiis oo kale waxaana jiray qoraallo u dhow meydkii professorka kuwaasoo looga qaray meesha magaca uu joogay ninkii Kagora ahaa kadibna dhammaantooda si wadajir ay u soo baxeen iyagoo markaas soo qaatay diyaarad waxaana halkaan wada joogay dhammaan asxaabtii professorka waxayna doonayeen inay weeraraan ninkii Kagora ahaa waxayna ugu dambeyntii soo galeen meel aad u baraf badan isla markiiba ninkii Hellboy ayaa halkaas soo galay isagoo markaas ula kulmay ninkii Kagora ahaa waa uuna soo dhaqaajiyay isagoo markaas halkii gudaha u soo galay waxaana Hellboy soo weeraray mid ka mid ah ciidamadii Kagora waxaana bilaabay inay dagaalamaan laakiin ninkii Hellboy wax badan ma aysan ku qaadanin waxaana markaas soo abdiray ninkii isagoo soo weeraray waxaana waqti xaadirkaas la socday Lisa iyo ninkii wakiilka ahaa waxaana markaan ogaadeen dhammaan makhluuqyadii soo weeraray inay halkaan tuuran yihiin waxaana oo dhan ka dambeeyay ninkii Kagora ahaa waxaana isla markiiba ninkii Hellboy soo wada weeraray makhluuqyadii waxaana markaan bilaabay inay isugu tagaan Hellboy waxa uu bilaabay inuu markaan isdaafaco isagoo markaas dhammaan baabi'inay makhluuqyadii waxaana markaan bilaabay inay dagaalamaan markaan Lisa ayaa markaas ku dheesay wakiilkii waana aniga i garaacda maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaan awood yeesho waxaana wakiilka dharbaxtiyeenay gabadhii wakiilka ahayd waxayna gabadhii Lisa ahayd yeelanaysa awooddeeda iyadoo markaas dhammaan baabi'inaysa makhluuqyadii halkaas ku sugnaa waxayna u adeegsatay awooddeeda iyadoo markaas dhammaan baabi'isay laakiin markaan waxaan aragnaa ninkii Hellboy oo markaas la xiriiray isagoo markaas gacanta lagu dhigay waxaana markaan hor joogay ninkii Kagora iyo asxaabtiisa waxaana sidoo kale la qabtay wakiilka iyo gabadhii Lisa ahayd iyagoo markaas iyagana la xiriiray waxaana Kagora dhammaan gacanta ku dhigay Hellboy iyo asxaabtiisa waxaana doonaya inuu dhammaantoodii soo afjaro waxaa kaloo jira dhagax weyn kaasoo samad ka soo dhici doona markii la furo marayka adduunka runtii waxay ahayd habeen dayaxmadoobaada waxaana la furi karay marayka adduunka Kagora ayaa markaas weydiiyay ninkii Hellboy ahaa ma ogtahay sababta ay gacantaada u weyn tahay Kagora isagoo sii hadlaya ayaa wax u sii raacinaya dhabaantii gacantaada waa furaha marayka adduunka hadda waa inaad noo qabataa hawshaada oo aad noo furtaa marayka adduunka Hellboy ayaa markaas diiday inuu markaas furo marayka adduunka Kagora ayaa markaas ku rakaatay isagoo markaas weydiiyay miyaadan u sameynaynin badbaadada Lisa waxaana uu sheegay haddii uu mid aan sameyn waayo inuu awood ka dhuuqi doono gabadhan Lisa waxaana qasaba inuu Hellboy markaas furo marayka adduunka laakiin Hellboy waxa markaan isku dayay inuu markaan isku furo alwaax lagu xirxiray laakiin Kagora ayaa markaas dhahaya aqoonsigaaga dhabta ayaa lagu qoray qufuladan mana u dhawaan kartid qufuladan kugu xiran adigoo aanan wicin aqoonsiga dhabta waana inaad ku dhawaaqdaa magacaaga dhabta Hellboy ayaa markaas sheegay magaciisa dhabta markii uu magaciisa dhabta sheegay waxa markaas ka daadanay qufuladii waxaana markaan saad ugu weynaanay geesihiisii
markaana Hellboy waxa ku soo ziyaadiyay awood aan caadi ahayn oo uu soo dhaqaajiyay isagoo markaas bilaabay inuu markaas gacanta kaliya meesha laga furay marka adduunka laakiin haddii uu markaan adduunka furo waxa markaas dhici doonta in markaas makhluuqyo badan yimaadaan adduunkooda markaasna ay baabiyaan wixii dad halkaas ku sugan wakiilka ayaa markaas ku yiri ninkii Hellboy adiga ma ogtahay cidda aad tahay hana iloobin aqoonsigaaga iyo qofka adiga aad tahay waxaana markaas jibinaya labadiisii goosood oo waaweynaa oo hadda u soo baxay waxaana markaas xirmay markii dunida waxaana bilaabay inuu markaas geesi ka taago ninkii goor ahaa intaas kadib wuxuu kor u soo qaaday gabdhi Liza ahayd laakiin ninkii goor ahaa weli muusan dhimin oo waa uu noolaa isla markiiba ninkii goor ahaa waa uu dhacaya isagoo markaas uu calooshiisa ka soo baxaya makhluuqii faraha badnaa ayaa wax uu noqonaya makhluuq aad u weyn waxaana makhluuqii bilaabay in gacmihiisa tirada badnaa oo markaas ku dafay ninkii Hellboy waxaana markaas ku dayay inuu ninkii Hellboy halkaas ku soo afjaro laakiin ugu dambeyntii Hellboy wuxuu ku guuleystay inuu markaas soo afjaro makhluuqii isagoo markaas dhamaantiisa qarxiyay waxaana markaas ka soo badbaadiyay makhluuqii waxaana waqti halkaas noolaa wakiilkii iyo gabadhii Liza ahayd waxaana dulimaanay gabadhii Liza ahayd waxaa markaana bilaabay ninkii Hellboy inuu markaas dareenkii Liza soo celiyo maadaama iyada suuxsaneed Liza waxa markaas dib u soo laabanaya dareenkeeda iyadoo markaas dareenkeedii helaysa waxayna bilaabaysaa inay habsiiso ninkii Hellboy waxaana maanta halkaan ku soo gabagabeynaynaa qaybtii koowaad ee filimkeena waxaana soo raacin doonaa qaybta labaad haddii uu sareeyo saamaxo intaan muuqaalkaan mid ka xisaab badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino